أيامك تمضي لكنك ذاكرة تبقى، أسرار تلتحف العمق نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، وعسانا أن نحدث فرقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada barnaamijkeennii halyeeyada islaamka ee la hilmaamay ka qaybtii saddexaad. qaybtii hore waxay noo joogtay markay taariikhdu ahayd 479 iyo muctamid oo ahaa amiir ka mid ah amiiradii waqtigaas ka talin jiray magaalo ka mid ah Andalus uu soo diray fariin Yuusuf ibn Tashfin, fariintaas oo odhanaysa na soo gaadh noona soo gargaar kaale naga daafac gaalada magaalo wala wareegaysa dhulkayaga. fariinta Yuusuf wuxuu kaga jawaabay sida uu ka yeelay xaalkayga insha Allah waxaanu ka arki doonaa xalqada tan. kusoo dhawaada xalqadii oo idin kala baxo. markay taariikhdu ahayd 479 ayuu muctamid oo ahaa amiir ka mid ah amiiradii waqtigaas ka talin jiray magaalo ka mid ah Andalus uu soo diray fariin odhanaysa na soo gaadh. Yuusuf ibn Tashfin wuxuu isugu yeedhay culimadii iyo fuqahadii muraabidiinta si uu ula tashado. حتى وحو وراقو كوي ديني أرنكا صدر علماء المسلمين بغداد يلوك عرباء كون وليد لما تودنا وحي صرع عيني واجب تحيين لو قد مدعو لبدبعد المسلمين أندلس وحو يوسف الله ونحر استعد عما سوراقو قدر يتذكر أندلس سوى كل رجلي لو مدعو جهادك لقنا تلقى لو الدين تلو قرقارو يوسف الله ونحر سيدي نصار شاقنين كرسي جعل ما أهين بلسوحو هانين جهاد جعل كليا مديرين ciidamadiisa ee ugu horeeyay oo hogaaminaya ciidanka bilowgii sanadkii 479 hijriyada ayuu fuulay doontii u horeysay isaga iyo ciidankiisa balse waxaa jirtay waqtigaas bad xiran oo dabaylayo roobab ayaa ka da'ayay oo badda aad iyo aad u kacsanayd. Yuusuf Allah u naxariistay wuxuu gacmaha kor u taagay oo baryay Allah subxaanahu oo yidhi rabbiyo haddaad khayr ku ogtahay bad gudubkayagaas noo fudaydi haddii kalena rabbiyo naga hor joogto. isla markiiba intaanu gacmaha dejinayo rabbi dejiyay dabaylihii roobkii badduna ay degtay. rabbi markuu fudaysay baddii oo Yuusuf iyo ciidamadiisu soo gaadheen Andalus ayaa waxay argagax ku noqotay Alfonso lixaad iyo ciidamadiisii sidaa awgeed wuxuu ku dhawaaqay in loo soo gurmado reer Yurubkii kale xataa wadaadkii weynaa kiristaanka uu soo caawiyo. Alfonso markuu arkay awoodda ciidamadiisa iyo tirabadnaantooda ayuu warqadda hanjabaad ah u soo diray Yuusuf ibn Tashfin balse Yuusuf wuxuu ugu jawaabay 3 eray oo kaliya wuxuuna ku yidhi waxay noqon doonto waad arki. dagaalkii weynaa Salaaqa. dagaalku wuxuu ka dhacay meesha loo yaqaan Salaaqa oo macnaheedu yahay silbasho ama siibasho ama silbasho fardaha oo ku silbanaya dhiiga gaalada faraha badan ee dhulka lagu qoobiyay awgeed. Alfonso wuxuu soo qoray warqad khiyaamo ah wuxuu ku soo qoray bari waa jimce waa ciidini sabtidana anaga qaar naga mid ah ayay ciid u tahay axadana waa ciidayadii isniintii nooga dhiga dagaalka. Yuusuf wuxuu qaatay warqadii isagoo si taxadir leh ula macaamilaya mowqifkaas wuxuuna fahmay inay meesha ku jirto khiyaamo waayo wuxuu ahaa nin soo dagaalamay in ka badan 60 sannadood oo khibrad iyo hawlka dagaalka ku xeel dheer sidaa awgeed muu sheegin ciidankiisii. subaxnimadii jimco taariikhdu markay ahayd 12 Rajab 479 hijriyada oo waafaqsan 23 Oktoobar 1680 miilaadiga salaadii subax marka laga soo baxay uu kala hagaajiyay oo tartiibiyay ciidankiisii balse nasiib wanaag Yuusuf wuxuu filayay ayaa dhacay oo ah in kiristaanku la maagayay khiyaamo iyo weerar gacmo ah waxayse la yaab iyo amaka ku noqotay ciidamadii kiristaanka ahayd ee ku talagalay khiyaamada iyagoo filinayay baraad la'aan iyo ciidan hurdo oo ay hurdada ku qabtaan. waxaana meeshaas ka dhacay dagaal ka mid ah dagaaladii ugu weynaa ee taariikhda muslimiinta iyo kiristaanka dhex mara. muslimiinta oo ka kala socda laba garab ciidanka maasiiqda ahayd ee watay Yuusuf iyo dadkii reer Andalus ee lahaa dhinacyada tirada badan waxaa hogaaminayay Yuusuf ibn Tashfin oo da'diisu ahayd 8 jir oo saarnaa faraskiisa seeftiisana ku dagaalamayay dhiirigelinayayna ciidankiisa. sidoo kale kiristaankii kale ahaa Talyaani, Faransiis iyo Spanish waxaa hogaaminayay oo horkacayay Alfonso lixaad. dagaal qaraar oo aan waxba la iskula hadhin ayaa la iskaga hor yimid
ayaa la iskaga hor yimid muslimiinta Yuusuf wuxuu u qaybsay 3 qaybood. qaybta koowaad ciidanka waxaa hogaaminayay Muctamid waxayna ka koobnaayeen 15,000 oo askari. qaybta labaadna waxaa hogaaminayay Yuusuf ibn Tashfin waxaana ka koobnaayeen 11,000 oo askari. qaybta saddexaadna waxay haayeen 4,000 oo askari waxayna isugu jireen dagaalyahano iyo kuwa qaabilsan shiishka ama sirridada dheer leebka kaga soo rida cadowga. waxaana halkaas lagu gumaaday kiristaankii loona laayay leen weyn oo dhiigooga iyo hilibkooga dhulka la wadhay. waana sida aynu soo xusnay dhiigooga inay farduhu ku silbanayeen. sidoo kale amiirkii watay Alfonso lixaad dhaawac culus ayaa soo gaadhay oo kuwa lug ka mid ah lugihiisa. waxaana ka badbaaday dagaalkaas 500 oo askari oo ku jiray Alfonso lixaad. ciidankiisa tiradooda waxaa lagu qiyaasay 80,000 oo askari oo fardooli ah iyo 200,000 oo kuwa lugeynaya. Alfonso si noqodkiisu ku rafaaday oo inta uu dhaxda ku sii jiray waxaa ka dhintay 400 oo askari lamana gelin caasimada uu qabsaday Toledo ama Duleydila 100 askari mooyee. Yuusuf ibn Tashfin isagoo xadka xidhanaya inuu xoreeyo dhammaan Andalus inta la haysto ayuu war xumo u soo dhacay oo loo sheegay wiil uu dhalay oo Yuusuf kaga yimid madaxtinimada dhulkii waqooyiga Afrika inuu dhintay. dowladdiina ay fooday madax la'aan ku dhowdahay sida ogeed waxaa khasab ku noqoto inuu ku noqdo dhulkii waqooyiga Afrika Andalusna uu kaga sii tago guutooyin nabad ilaalina. فتثير الشوق نبحث عن أكثرها صدقا نسألها فتثير الشوق نبحث عن أكثرها صدقا وعسانا أن نحدث سننا عبرا دولا أثرا نقشا صورا نحتاجك يا تاريخ لنا نبراسا والميزان هنا نحتاجك يا تاريخ لنا نبراسا والميزان